بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu kelmada ka odhan doonaa haddii alla yidhaahdo inta ilaahay subxaanaه wa tacaala inaga garadsiiyo mowduuca ku saabsan iimaanku inuu yahay asaaska bulshadu ay ku kulanto aliimaanu biاllahi wa birasuulih aw birusulih kelimat اliimaan haddii la iska iطlaaqo islaamka o dhan baa soo hoos gala si awgeed buu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ku tilmaamaya inuu iimaanku shucab badan yahay oo laa ilaaha ila allah ugu korayso ama ugu sarrayso ay ugu hoosaysana imaaطaة اlأdaa can الطariiq ambiyada ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ku soo diray hanuun iyo wax bini aadamka mideeya oo tubta toosan ku rida waxaanay rususha ka mid ahaayeen taariikhda bini aadamka marka dib loo raaco halyeeyadii ugu mudnaa ee kulmiyey bulshada dunida ku kor nool ummaddan islaamkaa markaynu iyada gaar u sii eegno ama ummaddii nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku sifaynayaa khaasiyadooda inay ka mid tahay inay umma waaxida tahay waana rabbukum faacbuduun ummo keliya baa tihin baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala anna rabbigiin baan ahay caabuda towxiidku ama iimaanku waa dad hadaf iyo masiirka isku waafaqay dadka ahluliimaanka ahi waxay aqbaleen inay ahdaaf go-an wada leeyihin oo waa dad aakhiro u jeeda waa dad ilaahay subxaanaه wa tacaala dhabbadiisa ku socda xagga alle u socda subxaanaه wa tacaala waa dad ku walaaloobay islaamnimada ilaahayna wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ila waantum muslimuun واctasimuu bxabli اllahi jamiica walaa tafaraquu alle subxaanaه wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllah kuwa iimaanka laga helayow alle ka cabsada subxaanaه wa tacaala ilaahay subxaanaه wa tacaala cabsidiisa la yimaada xaqa taqwaah cabsida uu xaq u leeyahay alle subxaanaه wa tacaala ka cabsada oo ha geeriyoonnina idinku aan muslim ahayn waxaa kaloo ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala markaasi waاctasimuu bixabli اllahi jamiica walaa tafaraquu waاctasimuu bixabli اllah alle jidkiisa ama xadhiggiisa ama kitaabkiisa ilaahay subxaanaه wa tacaala wada qabsada kaasi ha idin kulmiyo nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ilaahay ka soo saaray jaziira alcarabiya meelaan boqor lahayn oo madax lahayn oo cidi cid kala soconin oo qabaa'ilah oo qabaa'ilkaasi dhammaantood ama qabiilaba qabiilada kale ay ku duusho oo cid waliba ciddii ay ka xoog badan tahay dulmido oo ninkaan seeftiisu dhacaynin aanu wax cadaalada ama xuquuqa helaynin bulshada noocaasiya ayaa ilaahay rasuulka u soo diray calayhi الsalaatu wasalaam dabeetana muddo yar ayay bulshadaasi waxay ku noqotay bulshadii dunida tan hagaysay umma marhuubat اljaanib ummo mid ah oo bashariyada dhammaanteed hoggaaminaysa oo bari ilaa galbeed labadii dowladood ee waaweynaaye ka jiray u babadhigtay oo khalqi aada u tiro badani uu hoos yimaado maxaa keenay bulshada tani inay seetan u midowdo maxaa keenay bulshada tani inay hilmaamto wixii dhexdeeda yaallay yacni bulshadani may ahayn bulsho marka hore isku sal bannaanayd
ee waxay ahayd bulsho isdishay. dagaalada qaarkood 40 sannadood bay dirirayeen, dagaalada qaarkood 5 sannadood bay dirirayeen. dagaaladaasi maalan ansaar waxay gaadhsiiyeen xad la yidhaahdo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu markay soo hijroodeen waayelba wuu ka dhammaaday, waxoogaa dhallinyaraabaa isku hadhay. qabaa'il dhan oo waayeel ka dhammaado, waxaasoo colaad iyo rabshada iyadoo ay jirto ayaa islaamku u yimi. dabeetana iimaankaa mideeyey, aakhiraa midaysay, adduunkaa la yaraaday. wax weynoo laysku qabtaba adduunku wuu noqon kari waayey. wixii la raadacaynayoo dhan baa noqotay waxaan qofka agtiisa qiimo badan ka lahayn. waxaa dadka ka dhaxeeyey wuxuu noqday caqiido, wuxuu noqday iimaan, wuxuu noqday cibaada. basharku waxa uu inta badan isku dila isku xagxagtaa waa hunguriga dunida. hunguriga ayaa la isku haystaa, yaa qaadanaya, yaa badsanaya. waxa uu basharku inta badan isku haystaa hunguri daraaddeed inuu isdulmiyo. laakiin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadan markuu tarbiyeynayay waxyaaba aadka u qariibka uga sheekeeyey waxaa ka mid a xadiiska bukhaari ku yaalla ee nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, umamkii idinka horreeyey buu nebigu ku tilmaamay 2 ninoo ka mida baa dhulka la iibsaday. ninkii dhulka iibsaday ayaa wuxuu dhulkii ka helay kuusad ama jalxad ama ashuun waxaad tidhaahdaba oo dahaba ayuu dhulkii ka soo qotay. dabeetana kii uu meesha ka iibsaday buu u yimi, wuxuu yidhi warniyow dhulkii aan kaa iibsaday waxaa ku jira dahabkan intan leeg, aniguna dahabkaama iibsanin ee qaado. waa nimaan dahabka dhalaalkiisuba u muuqanin ee wax kale u muuqdaan. kuuskaa dahaba adigaa lee qaada buu yidhi. kii kalena wuxuu ku yidhi anigu waxa aan kaa iibiyey dhulka kan wax ku jirana anigu ma ogayn, saa daraaddeed shaqo kuma lihi, wixii aad ka heshay waa nasiibka adigaa le ee qaado. dabeetana labadii nin way isqabteen. maxaa la ysku hayaa? waxaa la ysku hayaa dahabka adaa le qaado iyo adaa le qaado. waxay culimmadu yidhaahdaan maxkamaddii dunida ugu qariibsanayd baa ka dhacday. maxaakiimta maxaa loo furtaa? maxkamadaha waxaa taga qof leh hada xaqi, kan anaa leh, waa waxaygii. oole waa lay dulmiyo, waxaan rabaa xaqayga inaan dhacsado. laakiin qoladani waa qolo isku haysa waa kaagii ee aniga shaqo kuma lihi, iyo may aduu kaagii yahay anigu shaqo kuma lihi. dabeetana waa loo garnaqay. nin baa u yimaadeen oo yidhaahdeen noo garna. ninkiina muslaxu raadiyey. wuxuu weydiiyey alakumaa walad? xadiiskii bukhaari ku yaalla. alakumaa walad? waar carruur ma leediin buu ku yidhi. haa bay yidhaahdeen, carruur waa leenahay. midi wuxuu sheegtay inuu inan dhalay, gabadh inan. kii kalena wuxuu sheegtay inuu wiil inan uu dhalay. deete wuxuu yidhi gartiinna waxaan ku qaadayaa inankaa iyo inantaa inta ay isu guurisaan intan dahaba ay isku haysaanna iyaga ku sadaqadaysto siiya buu yidhi, iyaga ku dhisa. waa maxkamo qariib ah, waa maxkamo ku saabsan dunidan waxaan adigu qaado iyo qaadan maayo adigu qaado. waa waxa uu iimaanku dhaliyo. dadku markay iimaan qaataan, ay caqiido qaataan, ee adduunkani uu la yaraaday qiimo badan aanu la yeelanin, ee u arko wax kasta oo ka soo galayba aakhiro wax lagu xisaabinayo inuu yahay, wuxuu isku dayaa inuu ka zaahido, inuu ka dheeraado. saa daraaddeed ayaa tawxiidku waa wax dadka walaaleeya oo isu keena. waa ka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka uu ku tilmaamayo. haddii baa alla leeyahy subxaana wa tacaala low anfaqta maa fi lard, nebi maxamed baa ilaahay wuxuu ku leeyahy subxaana wa tacaala haddaad bixin lahayd
dhulka korkiisa waxa saaran oo dhan maad qulubtooda isu keeni karteen. qulubtu hadday isu timaaddo masaalixda iyo jidhka iyo danaha kale oo dhammina waa wax fudud inay isu yimaadaan. ilaahay subxaana wa tacaala marka waa nicma uu ummadda muslimiinta ugu manno sheegtay ama uu gallad sheeganayo. ambiyaduna imaam albagawi raxmatullaahi calayhi ayaa wuxuu leeyahy bacata allahu alambiya'a kullahum biiqaamati addiin waalulfa waاljamaca wa tarki alfurqa waalmukhaalafa. ilaahay baa nebiyada wuxuu dhammaantoodba ku soo diray buu leeyahy alambiyaa kullahum waxa alle uu ku soo saaray diinta sugisteeda iyo alulfa dadka isu soo dhowayntiisa iyo jamaacada iyo isukeenka iyo tarki alfurqa waalmukhaalafa. haddii ummadi filiqu ku bato iyo kala tagu waxaan leenahay markaasi waa dacf aliimaan. waxaa jira iimaan daciifay ee low iimaankani uu xooggan yahay ama se uu qawi yahay ummaddu may kala tagteen, waayo waa ummad dariiqay marayso, hadafkay u socoto, masiirka ay leedahay, halka ay ku socoto waxoo dhammi uu midaysan yahay. aakhira markaa dadka waxay isu soo dhowaysaa dadka qalbiyadooda. iimaanku wuxuu dadka baraa alukhuwa walaalnimo, wuxuu baraa alcadaala. iimaanku wuxuu sal u yahay isu hilowga, wuxuu sal u yahay alwalaa, inay dadka mu'miniinta waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd. ilaahay wuxuu leeyahay dadka rag iyo dumarba mu'miniintahay badhba badhka kale ayuu u hiiliyaa. taa macnaheed waxa weyaan badhba badhka kale ayuu u hiloobaa. iimaanku wuxuu keenaa inuu qofku walaalkii naftiisa ka doorbido. qofkaad naftaada ka doorbiday inaad la walaalowdaa ama la midowdaa wax fog noqon mayso. sida daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa mathalu lmu'miniin, dadka mu'miniinta mathalkoodu waxa weeyaan baa la yidhi waa mu'min. idan sifatu liimaan aw iliimaanka wuxuu keensanayaa waxaan soo socda. dadku inay mu'min yihiin baa waxay ka keentay waxaan soo socda inay noqdaan. dadka mu'miniinta ah isu hilowgooda iyo kalgacalkooda wuxuu la mid yahay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ka mathali ljasadi alwaaxid. jidh keliya, jidhka keliya awsaal ma aqbalo. jidhka keliya waslada ma noqdo midba meel taallo, ee waa shay jidh qura wada ah. waa shay haddii mid dhibi soo gaadho ka kalena uu soo gaadho. waa shay hadduu mid xanuunsado inta kale xanuunka ay dareento. faryara hadday ku xanuunto seexan maysid. waxau nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamaya markaa mathalu lmu'miniin baa la yidhi. yacni tusaale waxa u abaa la leeyahy dadka mu'minka ah. macnaheedu waxa weeyaan sifatuliimaan waxa ay keensanaysaa inay dadku sidaan isugu xidhmaan oo isu diirnaxaan. sifatuliimaan waxay keensanaysaa siduu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacda. mu'minku mu'minka kale wuxuu yahay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam dhisku qiimo ma leh hadduu kala daadsan yihi. hadduu sibidh iyo jaajuur iyo dhagax iyo bir iyo waxaasi yahay oo la kala filqiyo qiimo ma leh. laakiin marka la isku daro ee concrete uu noqdo ayuu noqdaa shay qiimo leh. iimaanku markaa waa qaacidada koowaad ee dadka isu keenta. islaamnimadu dhammaanteedna waa usluubkii camaliga ahaa ee iimaankaasi uu la yimi. iimaanku waa caqiida haddaynu qaybtaasi siino, waa wax qalbiga dega. laakiin qaybta caqadiga ah waxaa ku lamaan qayb camaliya oo ah waxa fudaydinaya inay bulshadu midowdo oo mid ahaato. maalan haddaan tilmaamo arkaanta islaamiga ah, xaj
iyo salaad iyo soom iyo zakaa. xajku waa meel dadka muslimiinta midnimada ilaahay ku barayo subxaanahu wa tacaala. mu'min oo dhamma uu isu kaalaya baa la yidhao goob qura iswada taaga, idinkoo midabadiinnu kala gedisan yihin, oo afafkiinnu kala gedisan yihin, oo hantidiinnu kala gedisan tahay, oo waxaa طabaqaadka bulshada aad ka timaadeen kala gedisan yihin, fii saciidin waaxid amaama allahi ishortaaga baa la leeyahy. bannaan keliya ilaahay hortii istaaga subxaanahu wa tacaala, idinkoo weer qura ku wada dhawaaqayo tawxiid ku dhawaaqaya. labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata wاlmulk lak. adigoo weedhaasi ku dhawaaqaya keli ah inaa ilaahay u wada mahad celinaysaa subxaanahu wa tacaala, inaa ilaahay leedihiin keligaa baanu caabudaynaa, cidna kuugu shariig yeeli mayno. goob quraysa soo taaga baa leeyahy idinkoo xataa hay-adiinna daahiriga ay mid qura tahay, idinkoo dhammaantiin laba maroo yaryar oo aan tolnayn sita. haddaad madax ahayd iyo haddaad miskiin ahayd iyo haddaad xoolo lahayd iyo haddaanad xoolo haysanin iyo haddaad طabaqada koraysa ahayd iyo haddaad طabaqada hoose ahayd, kullukum fii saciid waaxid, idinkoo siman oon waxba isdheerayn. waa usluub camaliyo loo barayo qofka dadka mu'miniintii inay isdhex galaan. dadku inay isdhex galaan nadariyaadka qura maaha. islaamku wuxuu sameeyey qadaaya camaliya keensanaya inay dadkan isdhex galaan. bulsho mar qura wada seexanaysa oo meel qura u wada socota oo malaayiin min albashar ah, waxaa la faray wakhtigay intaa ku jiraan laa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaal, inaan afxumo dhammaanteed, muran, faasiqnimo, waxba toona inaanay ka jirin. waxaa la faray intay xaaladda tan ku jiraan alxilmu walanaah, in laysu dulqaato, inaad walaalkaa naftaada ka horu mariso. waxaa loo tilmaamay wax allaaliya waxa dad kala kaxeeyo oo dhammi inuu mulqi yahay marka kane, inaan wax ka soo qaad aanu lahayn. hadday midab tahay, hadday deegaan tahay, hadday luqo tahay, waxaasoo dhammi waxba kama jiraan baa la yidhi. reer nebi aadam oo muslimiini baa tihin, rabbi qurhana waa caabudaysaan, keligiina waa u dhawaaqaysaan, isagoo qurhana waa baryaysaan. waa usluub laynoo barayo camaliya. yacni masaa'ilka camaliga in badan waxaan ku tilmaamaa maalan askariga nadariyaadka dagaalka marka la baro, halkan baa la yeelaa, saan baa la yeelaa, waxan baa la sameeya, kan baa la sameeya, waxaasi kuma filla haddaan wax camaliyo practicala la barin. waa la gaajaysiiyaa, buuraa la eriya, kan baa maalan darawalnimada markaad baranayso, haddii theoryga lagu dhigo waddada saasaa loo weeciya, saasaa looga baxa, halkaasaa la jooga, theory waxba ma taro, waa thaqaafa. haddii aan lagu gelinin tajribo practicala training, lagu tusin waddada saa laysu taago, saa gabadhida laysaga eego, saa loo socdo, ninka waran waraaqahun intuu qaato theoretically yidhahdo anigu driver baan ahay, good driver baan ahay, oo theoryga waxaan ku soo baasay 95. haddaad 95 iyo 100 ku baasto toora driver ma tihid haddaanad gelin maxay wax camaliyo practicaloo la taaban karo oo waxa kan keeni kara inuu muujin karo darawalnimadaada rasmiga ah. islaamku waa iimaan iyo acmaal muujinaya iimaanka kan. acmaasha iimaankaa muujinaya dhammaantood waxa ay tilmaamayaan mas'ale ah aljamaaca wاltawxiid wاltawaxud wاlwaxda. waxay muujinayaan kelinimo, ay dadku ummo keliya iyagu yihiin. waxay muujinayaan midnimo, ay ummad wada socoto yihiin. waxay muujinaysaa wax allaaliya wixii looga baahnaa dad inuu midoobo. sida daraaddeed ayaa ilaahay wuxuu ina farayaa subxaanaه wa tacaala, maalan salaad baa laynagu waajib yeelay. min xikami الsalaa waxaa ka mid ah in layna faray mid waxaystiya mid aan waxaysan, mid miskiin iyo mid aan miskiin ahayn 5 salaadood inaynu tukanno oo wakhti siman tukanno. waxaa layna faray inaynu jamac ku tukanno. waxaa layna faray jamacaas inaynu saf qura wada gallo. waxaa layna faray safkaa keliyi
inuu toosnaado garabka isku qabanno haddaad madaxweyne ahayd iyo haddaad faqiir ahayd ummaddii muslimka ee markay muslim dhaba ahayd imaamkoodaaba tukan jiray inta kalena safka caadigaabay ku jirtay ma kala horraynin mana kala dambaynin saf waaxida bay ahaayeen kuwa talinaya iyo kuwa qayd qudha guntan aan wax kalaba haysanin bulshadaasi safka qudha ku wada jira waxay tilmaamaysaa midnimada waxaa la tilmaamaysaa midnimadan in laguu traingareeyo haddii xataa xaafadda aad degan tahay masaajidkaaga yar aad ku tukato inaad wiiggii mar timaaddo masaajidka weyn jumco inaad timaaddo oo bulshadoo dhan laysu uruurin karo oo fi shariica iminka waxaad mooddaa wax badan in la fudayso shareecadu waxay sheegaysaa jumcada in meel qudha lagu wada tukado muslimka oo dhamme haddii ay suurtoobi weydo laba iyo waxa noqoto laakiin tobankii isku fikradaba inay yidhahdaan masaajidkeena inay jimcaynu ku ogana waa baatil maaha sharcigu wuxuu ogol yahay toban waliba intay qol yar isu soo xidhaan midna waa khatiib inta kalena waa magaalana waa wada deganay shan sakadood iska soo horjeedana waa joognaa hada baatil diinta boosku ma leh waayo islaamku in dadka la isku ururiyo wadaa in la kala filqiyaan lama rabo in la isku ururiyo way dadku mid ahaadaan ayaa la jideeyey saa daraaddeed salaaddu waxa ay sheegaysaa in sanadkii ciida la ysugu yimaado oo meel qudha lagu wada tukado oo weliba ay wada tukadaan bulshadoo dhammi oo cidda la yidhi xataa kuwa macduurka ah haweenka aan salaada tukanaynin xataa ha soo xaadiraan baa la yidhi meesha si sawaadil acdam iyo midnimada ummadda shaciirada tale ay u muuqato ah ummadda midowgooda waxaa la mida soonkii bil ayaa waxaa la waajib laga yeelay ummadoo dhan kalendarkeeda cunno inay beddesho hadday jireen dabaqo xoololahoo maalintii 6 jeer wax cuni jiray iyo dabaqo masaakiinaa waxba cuni jirin maalin dhammaantiin waa wada soomantiin baa la yidhi dhammaantiin waa soomaysaan dhammaantiin mid waxaysta iyo midaan waxaysanin dabaqa waaxida ayaa ahaanaysaan waa daahira la rabo bulshadu yacni madaahirta daakhiliga iyo ta khaarijiga ah bini aadamku waxay yidhahdaan madharka xataa khaarijigii wuu isu dhoweeyaa muuqaalkay wada yeeshaan maalan haddaad magaalo soo gasho adigoo khamiis sita maalan ama macaws sita shaadhiya macaws adigoo sitaad timi magaalo mid kaloo shaadhiya macaws sitaad aragtay waxaad moodaysaa kaa inay wax isu tihiin waxba kale isuma tihideen madharkiina isku dhan u socda yacni dadku hadduu muuqaalka ka midoobo waxaad mooddaa inay bawaatintana ka midoobaan walidaalika baa islaamku wuxuu in badan ku dadaalayaa madaahirta muslimku uu muujinayaa inay midnimo muujiso waxaa ka mid ah zakaadkii oo la yidhi waa xuquuq dadka wax haysta inta laga qaado la siinayo kuwaan waxba haysanin waa xaq ay ku leeyihiin baa la yidhi xaqun liلsaa'ili wاlmaxruum waxbixintu waa waxa bulshada walaaleeya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy maxay tahaadu taxaabu bini aadamku waxyaabaha qaluubtooda fura waxaa ka mid ah oo dabeecadan basharka sida alla u abuuray ah wax siintaa ka mid ah qofka haddaad wax siiso si kasta uu kuula celiyo kuula cadhaysan yahay haddaad u gacan furraato marka dambe uu kuu laab furraanaya isaguna gacantu laabta waa furtaa gaaladii islaamka u soo dhadhawaatiyo dadkii baa la yidhi zakada waxa laga siiya waa mu'allafatu quluubuhum qalbiyadooda maal baa lagu furaya wax isu hadiyeeya baa la yidhi taxaabu alxub xubbi buu abuuraysaa baa la yidhi hadiyadu inaad wax bixisaan oo wax isa siisaan inaad isjeclaataan oo midowdaan bay abuuraysaa idan waxaan leenahay islaamka arkaantiisoo dhami waa masaa'il ku salaysan cala alijtimaac waالtawxiid midnimo iyo isukeen islaamku wax furqo u soo dhoweeyaaba ma jirto sidaa awgeed wuxuu asaas u yahay iimaanku weliba wuxuu yahay asaaska ugu fudud ee ummad lagu midayn karo
waa fure hadduu rogmado aan wax dambe loo baahnayn waa fure basharka hadduu rogmado dariiqa toosan u qabsanayo walidaalik ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa markii ilaahay u soo diray carab dhulkeedii ugu qurux gumaysay ku jirtay shaam hadday tahay dowla bizantiya baa haysatay romanskii baa xukumayey ciraaq iyo sawaadkaas hadday tahay oo dhan waxaa xukumayey bershiya yaman iyo intan beeralaydaa hadday tahay waxaa xukumayey bershiya inta saxaare ee lama degaa unba iyagu isku dilayeen inta kaloo dhammi gacanta dowladaha waaweyn bay ku jirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam looma dhibin calana xorriyadoon iyo inuu dadka kan xornimo uu raadiyo ama qabiil carab la yidhaahdo inuu mideeyo ama dhaqaale lama soo siino lama odhan si aad dadka iyo reeraha iyo waxba isugu keeni karto kiishkaa dahaba qaado u qaybqaybi lama odhanin nebiga calayhi salaatu wasalaam bale ilaahay baa wuxuu leeyay low anfaqta maa fi lard dhulka waxa yaalo dhan haddaad dadka u qaybin lahayd ma suurto gasheen inaad kulmisa baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala laakiin muxuu bulshadaa dhan ku kulmiyey aliimaanu billaahi wa birasuulihi wa bilyowmi alaakhir wuxuu dadka ku mideeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam inay dadku rumeeyaan alle subxaana wa tacaala alle subxaana wa tacaala inay si dhaba u rumeeyaan waxaa lagu mideeyey caqiidatu tawxiid oo ah furaha bini aadamka haddii lagu rogo dariiqiisa oo dhan la saxayo waa fure caaisha maxay lahayd waxay tidhi qur-aanka wixii ugu horreeye soo degay hadduu ahaan lahaa qaanuunka xaaraanta iska dhaafa kan xalaash wey kaas waa xaaraan saa hadduu ahaan lahaa waxay odhan lahayn weligayo khamriga ka degi mayno weligayo zinada iska dayn mayno laakiin waxa soo degay bay tidhi markii hore qur-aan ka warramaya janno iyo naar iyo tawxiid dadku markay ilaahay rumeeyeen ayaa la yidhi waxaan oo dhan iska daaya dadka nacraadka qabaliga ee ku jira iyo qowminimadan ka guuxaysa iyo reer hebelkan ka dhiciga kan iyo waxaan oo dhammi waxay baabi'i karaanuun hadday caqiido toosan helaan hadday tawxiid helaan idan ahmiyatu tawxiid waxa ay tilmaamaysaa inuu yahay asaaska ama binada koowaad ee bulshada muslimka ah midayn kara nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayey ummaddu gusaaga markay noqoto ka gusaa'i sayl wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ummaddan inay wakhti ku iman doonto umamku ay boobaan sida dadka xeedhada wadaagaya ay xeedhada u boobaan waxaa lagu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ma yariba may buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa tihin gusaa'un ka gusaa'i sayl waxaa tihin daadxoor la mida daadku daadxoorta wado laa wasna walaa qiima waxaa ku sugantihin ama waxaa waxtar leediin ama waxaa faa'iido leediin baan jirin maxay kaga baxayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam waa xagga dambe ugu tilmaamay diintiinna markaa u noqotaan waa adduunye jacayl iyo kan markuu fasiray ayuu nebigu wuxuu ku tilmaamay waxaan inay ka bixi karaan markay diintooda u noqdaan yacni caqaa'idoodii iyo islaamnimadoodii markay dib u xambaaraan oo ay ilaahay subxaana wa tacaala dib u rumeeyaan markaas bay noqonayaan wax ka baxa dulmiga ay ku jiraan umamku maanta axadu culamaa'i taariikh braytani odayga ingiriis ee toynby la odhan jiray ayaa waxaa ka mid ah weedhaha uu tilmaami jiray markuu taariikhda iyo xadaaraadka dumistooda ka tilmaamayo alumam tantaxir walaa tuqtal buu yidhi ummadaha intixaar ummaduhu way isdeldelaan buu yidhi ee lama dilo yacni waxa uu tilmaamayaa alcawaamil idaakhiliya baa ummadaha burburiya ee cadow dabad kaga yimoo quri ma burburiyo ummaddu markay iyadu is-aamini weydo iyadu tafaruqa samayso iyadu isdulmido iyadu gudaheeda waxa ka yimaada ayay burburtaa buu leeyahay cadowga khaarijigii qur-aankana ilaahay baa ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala qul huwa min cindi anfusikum idan waxaa asalka aynu u baahanay waxa weeyaan saxaabadii jabtay waxyaabihii lagu cileeyey waxaa ka mid a minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira waxaa idinka mida mid adduun doonaya waxaa idinka mida mid aakhira doonaya yacni haddaa acmaalu tawxiid la wada iman lahaydeen waa guulaysan lahaydeen
dariskan ma jecli inaan sii balballaadhiyo waayo isagoo cagsigiisa aba haddana jira daris kale oo ku saabsan furqada iyo sida loo xallilo ayaa jira laakiin waxa aan ku koobayaa wuxuu yahay iimaanku waa fure dadka isu keena bashariyada walaaleeya iyadoo waxa kaloo dhan ku kala gedisan af luqo jinsi cirqi watan waxba iyadoo ku kala gedisan iyadoo intaa hore usii wadaagi jirtay hadduu iimaan ugu darsamana waa wax ka dhigi kara inay qof qura isku noqoto iyadoo aan intaa wadaagin ayuu ka dhigayaa baynu leenahay inay noqoto bulsho mid ah ama midnimadu ay ka dhex muuqato ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aan badan iyo nusuus badan oo axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mid ah oo in badan lagu celceliyey amase la akhriyey ayaa masaladaasi tilmaamaya sida awgeed waxaan kusoo koobayaa haddii aynu furahaasi rogno ummaddan waynu isu keeni karaynaa haddaynu ummadda tan rabbigeed ku xidhno subxaana wa tacaala aakhira ay noqoto hadafka weyne ay u nooshahay waxaa fududaanaya in laysu keeno haddii taa la waayo waxaa adkaanaya masaalixdu inay iswaafaqdo markay masaalix qura noqoto inay iswaafaqdo way adag tahay waxaan ku soo koobaynaa markaa ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahi subxaana wa tacaala xadhiggiisa wada qabsada oo ha kala tegina baa la leeyahay subxaana wa tacaala aan dib u xasuusnaana markaasi naskaasi qur-aanka ee alle ka yimi subxaana wa tacaala wallahu aclam billahi towfiiq